kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada qodobada ugu doorka roon wararka waxaa ka mid ah wax badan ka ogow sababta loo xiray aqoonyahan Bursaliid khayro oo kulan qarsoodi ah kula yeeshay magaalada Dooxa madax Kenyaan ah maxaa looga hadlay kana soo baxay shirkaasi ciidanka dawladda oo laga mamnuucay xaafado ka mid ah magaalada Muqdisho iyo hoggaanka ciidanka oo aqbalay maleeshiyaad hubeysan oo al-shabaab weerar xooggan ku qaaday isla markaana ka furtay xoolo fara badan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaa daawadayaal wararka balse haddaad nagu cusub tahay YouTube-ka waxaad saartaa subscribe si aad u heshid warar xaqiiqda ku salaysan iyo xogagii ugu dambeeyay ee ka dhaca dunida balse aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya waxaa soo baxay saacadii lasoo dhaafay warar sheegaya in ciidamada Kenya ay xalay magaalada Nairobi ku xireen aqoonyahan Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid oo ka faalooda arrimaha siyaasadda Dr. Bursaliid ayaa xalay laga kaxaystay gurigiisa sida ay xaqiijiyeen ilaa isaga ka agdhow iyadoona gurigiisa ay tageen askar cadaan oo u soo kaxeeyay dhinaca saldhigga ciidanka warar kala duwan ayaa ka soo baxay sababaha loo xiray hayeeshee warar ay heshay mool ayaa waxay sheegayaan in sababta loo xiray ay tahay shir isaga iyo siyaasiyiin kale ay shalay ku yeesheen magaalada Nairobi kaas oo ay ku furayeen xisbi siyaasadeed oo cusub isaga iyo siyaasiyiin kale waxaa la sheegay inaysan ogeysiin dowladda Kenya furitaanka xisbigaasi isla markaana aysan warqad ogolaansho ah ku aadan waxaa jira siyaasiyiin kale oo qoyaanka lala xiray kuwaasi oo magacyadooda qaarkood ah lagu kala sheegay Cali Cabdi Maxamed Geeladiriye iyo nin magaciisa lagu soo koobay Xuseen aqoonyahan Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid waa macallin jaamacadeed oo ku takhasusay arrimaha xiriirka caalamiga ah kana faalooda xaaladaha Afrika iyo caalamka maalintii Sabtida ee bisha Juun ay ku beegneed kowda ayaa waxay dowladda Qatar diyaarad qaas ah u soo dirtay Xasan Cali Khayre dhanka kale isla maalintaasi waxaa ka soo baxay magaalada Nairobi ee dalka Kenya wafdi uu hogaaminayo xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya oo ay weheliyaan mas'uuliyiin ka socotay xafiiska madaxweynaha Uhuru Kenyatta labada wafdi ayaa ku balansanaa magaalada Dooxa iyagoona ka jawaabaya codsi ugu yimid dalka Qatar dowladda Qatar oo dana badan kale arrimaha shidaalka Soomaaliya ayaa ka dambeysay shirka la isku keenayo labada dal shirkada laga leeyahay dalka Qatar ayaa qayb ka qodida shidaalka ku jira gudaha dalka Kenya dhanka kale maalinta khayru ka soo baxay magaalada Muqdisho habeenkeedii waxaa hotel madaxweyne Farmaajo uu ka degan yahay magaalada Makka tagay ra'iisul wasaaraha dalka Qatar isagoo kala hadlay Farmaajo shir lagu qabanayo magaalada Dooxa oo lagu dhexaadinayo haddaba shirka qarsoodiga ah ee ka dhacay magaalada Dooxa ayaa wufuudi ka socday dalka Kenya waxay u gudbiyeen khayro go'aanadoodii ugu dambeeyay dhanka kale dowladda Qatar ayaa waxay soo jeedisay in dib loo dhigo dacwadda maxkamadda oo dowladda Soomaaliya ka codsatay dib u dhigista dacwadda labada dal ay isku haystaan dowladda Qatar waxay ballan qaaday in ay bixinayso dhammaan lacagaha dowladda Soomaaliya ay u haystaan qaranada ka shaqeynayay dacwadda badda Soomaaliya oo aan weli la bixin Ra'iisul Khayre ayaa ku adkaystay in loo baahan yahay lacag lagu bixiyo si dacwad dib loogu dhigo Khayre ayaa ballan qaaday in magaalada Nairobi uu dhawaan u soo diri doono guddi ka socda dowladda Soomaaliya kuwaasi oo keeni doona dowladda Kenya waxa uu ku tilmaamay war ay ku faraxdo Khayre ayaa u sheegay wafdigii Kenya inuu isaga yahay qof Kenyaan ah maadaama uu qabo gabar Kenyaan ah sidaas darteed uusan marnaba ogolaan karin in dalka Kenya dhibaato la gaarsiiyo kulan ay iskugu yimaadeen hoggaanka ciidanka booliiska oo ka dhacay xarunta taliska ciidanka ayaa waxaa warbixin loogu dhageystay saraakiishii ciidan ee loo diray in loola soo xaajoodo shacabka ku dhaqan qaybo ka mid ah xaafadaha ku yaala degmooyinka Hodan iyo Madiina kuwaasi oo godood ka sameeyay qorshihii ay dowladda doonaysay in looga saaro xaafadaha ay degan yihiin kulanka taliska ciidanka ayaa wax uu daba socday kulan lagula kulmay dadkii godoodka sameeyay oo ka dhacay guriga xildhibaan Ubax Taaliil kulankaasna ayaa waxaa ka soo qayb galay Saadaq John Madaale iyo taliyaha banduulka ciidanka iyo saraakiil kale oo wakiil ka ah ciidanka booliiska iyo nabad sugidda
madaxdii hogaaminaysay shacabka gadoodka ay hubaysneed lana baxay magaca ciidanka madaniga ayaa kulanka ka sheegay inay diyaar u yihiin inay la dagaalamaan ciidamada dowladda haddii ay isku dayaan in hantidooda ay xoog kula wareegaan. sidoo kale shacabka deegaankaasi ayaa waxay u sheegeen taliyaashii kasoo qaybgalay kulankaas in ay marnababa aamini doonin ciidanka dowladda iyo guud ahaanba dowladda Soomaaliya, sidaasi darteedna ay ka mamnuuceen ciidanka dowladda gaar ahaan hogaanka booliiska inay goobahaasi tagaan. hogaamiyaashii kasoo qaybgalay kulanka shacabka gadooday ayaa warbixintooda ku sheegay in ciidan hubaysan oo madaniga ay ku jiraan deegaanada jaamacadaha ex control, wasaaradda caanaha, xaruntii hore ee bangiga dhiiga, warshada kabka saliga Ameerikaanka iyo dhammaan xaafadaha ku geedaansan isbitaalka Digfeer. waxay sheegeen in ciidankaasi ay ku hubaysan hubka noocyadiisa kala duwan, sidaasi darteedna aysan ciidamada booliiska usan awood u lahayn in ay dagaal la galaan ciidamadaasi. deegaanka halgan oo hoostaga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in halkaasi uu dagaal xoogan ku dhexmaray maleeshiyaad hubaysan iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab, iyadoona dagaalkaasi la sheegayo inuu ka dhashay khasaare kala duwan sida ay sheegeen dadka deegaanka. dagaalka dhexmaray Al-Shabaab iyo maleeshiyaadka deegaanka ayaa waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Halgan oo qiyaastii u jira 14 kiiloomitir magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa waxa uu ka warbixiyay dagaalka dhexmaray Al-Shabaab iyo maleeshiyaadka deegaanka, isagoona sheegay in maleeshiyaadka ay Al-Shabaab ka soo furteen xoolo fara badan oo ay Al-Shabaab markii hore ka soo aruuriyeen dadka deegaanka. sidoo kale waxa uu sheegay in Al-Shabaab dagaalka loogu dilay ilaa iyo 6 dagaalame ragga maleeshiyaada oo sabab xoolaha ka kaaysan waxa la yiraahdaa Alshan deegaanka Halgan meel u jirto aan quraamo faantay 14 kiiloomitir 15 kiiloomitir meel u dhaxayso marka Alshan halkaas waxay ku aruurin jireen xoolaha oo si kawaad ku waxay ku magacaabeen Alshan dadweynaha ay ka soo aruurin jireen oo adiga hal sano ama muddo Alshan dhowr bilood ay ku aruursadaan oo meesha ragba ay ku biilaan oo Alshan xoolaha dhaqo oo meesha ku ilaaliyo marba halkaas xoolaha meesha lagu aruurin jiray waa qaybta bariga magaran. marka waa lagu soo weeraray dumarka iyagoo yimid 10 qofood ilaa 15 qofood inta qayb laakiin inta kale lacagtooda maaleen laakiin xaad martay bartii ay ku dileen ariga waxa lagu qiyaasay adiga 600 ilaa 500 ma garatay laakiin tiro sugan ma hayo. wararkii ugu dambeeyay ee deegaanka laga helayo ayaa waxay sheegayaan in halkaasi ay ka taagan tahay xiisad xoogan oo u dhaxaysa Al-Shabaab iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab xoolaha ka soo furtay, sida ay sheegeen dadka deegaanka, iyadoona ay sheegayaan dadka deegaanka in halkaasi Al-Shabaab ay ku soo aruuriyeen dagaalamayaal fara badan oo ka tirsan Al-Shabaab. sidoo kale maanta ayaa la filayaa in maleeshiyaadka ay u qeybiyaan dadka deegaanka xoolaha ay Al-Shabaab ka soo furteen, isla markaana markii hore Al-Shabaab ay ka soo aruuriyeen dadka deegaanka. ma jiraan wax war oo ka soo baxay dhinaca dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ku aadan dagaalka ka dhacay deegaanka Halgan ee ka tirsan gobolka Hiiraan, iyadoona uu dagaalka imaanayo xilli maalmihii dambe ay xiisad u dhaxaysay dadka deegaanka iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab. guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaya daawadayaal warkii aad ka daawanayseen warkan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.